أستاذ عوان كجوابه soo gabagabay sheekhay tii u dambeysay waa insha Allah marka hore waad mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku faraxsanahay waqti dheer baad waqtigiina qaaliga ah kuwa hadda u tahay midnight iyo kuwa waagu isii bariyo iyo kuwa waqtiga kala jooga iyo xil walba joogtaan inaad inta asla aad aan isla joogno idila joogtaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa idinka oo dhan waxaan si gooni ugu mahad celinayaan iyo tiimka soo abaabulay barnaamijkan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay uguna mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan idinkula dardaarmo mahma aan kala duwanaano waxaan rabaa inaan khuluqa ixtiraamiga insaanka ah inaan is-ixtiraamno inagoo kala duwan 100% haddaan doonno yani oo xataa hadday naga dhaxayso Soomaalida xataa diintu ay naga dhaxayn weydo inaan is-ixtiraamno isqadarino level aan gaarna ah muxuu waan kala duwannahay laakiin anta akhi wa anta ukhti yani walaalnimo insaanimo naga dhaxaysa Soomaalnimo naga dhaxaysa marka ixtiraamkaas inuu jiro iyaduna waa mid kale oo dardaarana weeyaan ka ugu dambaysa aan dardaarmayo waxa weeyaan waxaan rabaa qanaaco kasta oo qaadanayno inaan ku qaadano akhris fara badan iyo fikir fara badan iyo muxuu meelo kala duwanaansho ka fiirin fara badan inaan wax ku qaadano qanaacada oo ina xoogaa laablakac inaga noqonin iyaduna waa dardaaran kaleeto weeyaan insha Allah taala waxa kale oo yeesan dhowr jeer ku celceliyay inaydaan daalin bulshada marka qaar waxaan kula kaftamaa waxa laga yaabaa qofku inuu hal sano laba sano program ku jiro kadib markuu arko wax badan oo isbedeli waayay inuu yiraahdo war waxan ma bala bedeli kara yani isbedelka ummad in la dhiso la bedelo waqti badan bay u baahan tahay marka inaynaan daalin inaan soo noqnoqono mowduuca ku saabsan dumarka inaan marba dhan ka fiirino qawaamada inaan fiirino nushuuska inaan fiirino masalada dalaaqa inaan fiirino guurka iyo nikaaxa iyo shuruudiisa iyo dalaaqiisa inaan fiirino muxuu ahaa masalada xukunka inay wax xukumi karto inaan fiirino waxaas oo dhan yani laakiin asalka waxaas oo dhan wuxuu ku xiran yahay nadarada ugu horeysa oo ah qofka dumarka waa naaqisaatu aqli wa diin sax ma aha waa inaan taa burburino oo marar badan ku celcelino aragtida kale oranaysa fal qanaca ma laga abuuray sax ma aha waa inaan nadarada burburino iyaduna waa meelaha ay ka halaabayaan weeye inaan burburino nadarada kale ee taamuriga ah ee oranaysa gabadhu mar walba shar bay ka samaysan tahay waa muxuu ahaa nadaradaadana in ayadana burburino nadaraadkaas ay wax ku dhismeen marka hore inaan abaarno iyaga burburino iyaga dumino waqti badan gelino kadibna waxa kale aan ku duldhisno insha Allah taala ayaan iskula dardaarmaynaa mahadsantiin marka aad u mahadsan tahay ustaadkayga sheekayga Cabdiraxmaan Shariif